somalilan hore uun soconayso ma garatay imika markaynu somalilan gudaheeda joogno durba wafdigii baa la qiimeeyo halkan iyadoon maraykan ba la gaarin ba halkan laga sii qiimeeyey kale waayo kale waa budu kale waa bada kale waa budu kale waa bada soomaad garan marka eegtana reerihi kale way ku yaryihiin saddex nin oo ugu tunka weyn ganacsatada somalilan ayaa raacay oo maxamed Saciid iyo Dahabshiil iyo Cabdikariim Maxamedi soomaad garan saddexdaas waa halbeel maxaa helay baabunaas iyo cambalaash iyo maxaa helay hadii xidda ma garatay ganacsato la kaxeeyo kale miyaa la waayay saddexdan nin kala hadaan oo laba uun anu madaxweynaha haduu ila tashado laba ku darbaan oran lahaa soomaad garaneen wasiirka arrimaha dibadda iyo kii gudaha markay noqotana ka adir marka arrimaha oo kale laga hadlayo wasiirka arrimaha dibadda ayaa important oo la ka haysta ay tahay shacabka Soomaaliland ee bari iyo galbeed ku nool in reer walba qof lama wada kaxayn karo laakiin 17 qof iyo qofka iyo wasiirka arrimaha dibadda Washington uga sii horeeyay waa 18 ma 19 saddex qof beesha dhexe saddex qof ama qof in loo soo qaaday yahay number 1 barkhad batuun la kaxeeyana madaxa guudkiisa asay yahay sababtoo anigu barkhad batuun meel laga tago gabooye waa doctor kuraasi kumale ma garatay gaashaan dhigda meelba kaga jiraan lama baahna in iska shaqaalo hoosaado oo daad qori la ridayna fartayga xaasidna hadii qashin la xaariyana mafiiqda qaada qof important oo muuqda loo baahan yahay anigu barkhad batuun hadaanan reerkii kale waxba ka qaadaynin barkhad batuun ama boqorkoodii labada mid u maqaadi lahaa Soomaad garan laakiin safarka madaxweynaha maanta madaxweynayaashii Soomaaliland soo maray waa kii ugu sareeyay waayo madaxweynaha Soomaaliland jooga wali Mareykanka mudagin laakiin hadda ogow maanta Soomaaliland baasaboorkeeda in la fiiseeyo Mareykan lagu tago yaa ka shaqeeyay baahir riyaal wadada xaari isaga iyo Faroole iyo Muqdisho inta looga yeeray Washington ayuu yiri adeer baasaboorka Soomaaliland hay'adda damaalinta ma jirin astaanta Soomaaliland hadaydan lagu qaabileen halka tahay reer Mareykan idin ma imanayno Soomaad garan sidii buu isagu iskaga joogay Faroole tagay iyo Muqdisho Siraayo mucaaradina kolkiiba uu isqaaday isaga tagay oo yiri madaxweynuhu sidoo u diiday lacagta uu doorashada ku galay iyo Mareykan laga soo siiyay oo la yiri waxba la qarin maayo Soomaad garan adiga fariida meeshii fuul baalay marka waxa weeyaan inta badan adiga hadii dagaal jirana dadkaaga ba lagu hubeeyaa fikir khaldani hadii jirana dadkaaga lagu hubeeyaa laakiin dadka reer Soomaaliland maanta siyaasadii Soomaaliland way toosto way sar joogsato horta waa loo samraayo way naga u samirnay